بسم الله الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحاو إنه شرفا ساعدك علمتان إنه مرتيهين الشيخ الدكتور عيسى محمود عبد الله يا الشيخ الدكتور فيصل محمد علي يا الشيخ عبد الرحمن أحمد أبيض صدح داس الشيخ ورنتي إنه فايدين دون عاوة موضوع حويا التعليم الشرعي وأثره في إصلاح المجتمع تعليم الشرعي عدا يرهات كاي كل هذا هاي بالشدة حاجات تيدا قيبته ورا وحق لي دونا إن شاء الله دكتور عيسى وأنا كسر دوين يا فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع بإحسان إلى الدين ولا الله أحبابته خيارته إله وحن كبرنا دقائق عن جوجنو إن نو جوجنو عباده يكل فايديسي خير كي وناق عن كل فايديسين طبعا عوان كسر المغلني التعليم الشرعي وأثره على إصلاح المجتمعات برشادة دينتا يرادكو كل هاي هرمرينتا يهاجنتا يتوسينتا بولشوينكا كلا دوغن قيبتا كواد waxaan tilmaami doonaa daqaa'iqa aan wada joogno oo kooban ahmiyada uu leeyahay cilmiga sharciga iyo barashadiisu fadliga ilaahay agtiisa uu ku leeyahay oo quraanku siiyay iyo sunnaha nabi maxamed kaleey salaatu wasalaam iyo hadalladii wanaagsan laga soo guuriyay salaf saalix sanu waa dareensanahay cilmigu waa cibaado hadday salaadu cibaado tahay oo soomku cibaado yahay oo sakadu cibaado tahay oo xajku cibaado tahay oo sadaqadu cibaado tahay cilmiguna waa cibaado cilmigu waa diin iyo dhaqan waxa ilaahay loogu dhawaado oo Allah subhanahu wa ta'ala loogu dhawaado waxa kamida barashada culumta sharciga ayaa kamida isaga barashada cilmiga ayaa si wanaagsan ilaahay adoon ugu noqonaysaa lagu dhaqmayaa oo loogu noolaanayaa dhulka dushiisa ahkaamta sharciga iyo qaadashadeeda cilmiga iyo barashadiisa ayaa culays oo dhan dadka kaga tagaa ilaahay subhanahu wa ta'ala markuu waafajiyo xadiis nabiga kaleey salaatu wasalaam laga wariyay nabiga waxa loo sheegay laba nin caabida oo Allah subhanahu wa ta'ala adoon u ah iyo nin caalima oo cilmigan heer ka gaaray ila laftiga caalimka oo mutaystay markaas nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu yiri فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم فضلك يا ديراتك وديري هاي عالمكم عباديستها والصدى الأكل دوغنهي فكاسا رسولك عليه الصلاة والسلام وحو راعيي إلهي يا ملائكته يا ضدك كونك كنون يا دولك حتى قرآن تقولك يا كجرتا حتى كلونك وحي أمانان أما أدعيان ضدك خيرك يا وناك مركا براء barashada culumta sharciga aqoon loo yeeshaa waa darajada labaad ee ku xigta nabinimada markay darajada koowaad darajada labaadna waa cilmiga iyo markaa barashadiisa weeyii saadaradeed ayaa xataa sunnayaasha la sunnaysanayo ayuu markaa ka fadli badan yahay barashada culumta sharciga sababtu waxay tahay sunnuhu adigu ku kooban yahay adiga ku dhaafi maayo cilmigaad barato waad gudbinaysaa cid baad siinaysaa nafcigiisa ayaa ballaaran cibaadada nafcigeeguna adoonka sameynaya ayuu ku kooban yahay nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa uu yiri cilmiga fadlul ilmi khayru min al ibada wa khayru diinikum al wara' wa khayru diinikum al wara' cilmigu fadliga uu leeyahay isagoo nabigu tilmaamaya uu cibaadada la sameynayo isaga ayaa ka khayr badan waa xadiis ay darajadiis marka xasan tahay
dhaqankiina ta ugu wanaagsanina waa xalaal miiradka waxa ilaahay loogu dhowaado waxa ka mid ah sida daraaddeed cilmiga iyo dalabkiisa barashadiisa u socodkiisa u xeerayntiisa raadintiisa ayaa ka mid ah wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam man salaka طariiqan yaltamisu fiihi cilma sahala allahu lahu bihi طariiqan ila aljanna qofka mara waddo uu ku raadinayo barasho cilmigeeda xataa masale hadday tahay su-aal hadday tahay ilahay wuxuu u fududeeyaa dariiqa jannada maanaa cilmiga waxaa lagu helaa janna lagu gaadhaa wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam wama ijtamaca qowmun fii beytin min buyuuti illaahi yatluuna kitaab allah wayatadaarasuunahu baynahum ilaa nazalat calayhim asakiina wagashiyadhum alraxma waxafathum almalaa'ika wadakarahum allahu fii man cindah waman baطa'a bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuhu nabigu alay slat slam wuxuu tilmaamay qolom hadday iskugu timaado guri ka mida guryaha ilaahay waa masaajidadii iyagoo qur-aanka baranaya waa cilmigii aqriyaaya subcinaaya ilaa haddii ay jirto xalqadaha cilmigaa fadhiya dhegaysanaya xasilooni baa ku soo degta naxariistaa daboosha malaa'igtaa hareeraysa ilaahay baa yidhaahda addoommahaygaa eega oo ilahay soo baa hadal qaadaa xadiiskaa waxaa la socotaa qofku markuu camalkiisu la hadho tolkii waxba uma qabto waa laga tegayaa taa waxa shaqaynayaa waa waxaad qabsatay weeyi sidaa daraaddeed walaalayaal diinta islaamku wuxuu ku taagan yahay aasaas u ah barashada culumta sharciga ah sidaynu tilmaannay ilaahay waxa loogu dhowaado cilmiga ayaa markaa ka mid ah ilahi wuxuu subxaanahu wa tacaala yarfac illaahu aladiina aamanuu minkum waaladiina uutuu lcilma darajaat ilahi subxaanahu wa tacala wuxuu sare u qaadayaa kuwa iimaanka leh iyo kuwa cilmiga la siiyey darajooyin qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waaladiina laa yaclamuun ilahay baa looga marakacay miyay siman yihiin kuwa aqoonta leh iyo kuwaan lahayn innamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa ilaahay waxaa ka dhowrsoonaada cibaado dhabta oo la yimaada dadka cilmigii aqoonta leh fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun dadka aqoonta la weydiiya haddaydaan ogeyn nebiguna wuxuu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam man kharaja fii talabi alcilmi fahuwa fii sabiili illaahi xataa yarjic wuxuu nebigu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam qofka u baxa cilmiga iyo dalabkiisa wuxuu ku sugan yahay jihaad buu ku sugan yahay hilinka ilahi macnaa jihaad buu ku sugan yahay ilaa uu ka soo noqonayo jihaadka xaqaa lagu muujiyaa jihaadka shaydaankaa lagu duleeyaa jihaadka naftaa daasha oo tacab yeelata cilmiguna waa saasoo kale weeye wuxuu leeyahay cilmiguna tacab buu u baahan yahay daal buu u baahan yahay shaydaanku ayuu dulaynayaa oo jihaadkii markaasi ah xaqa ayaa muuqanaya saasaa nebigu alayh isalaatu wasalaam u tilmaamay ahamiyadda markaa uu leeyahay xadiidku wuxuu rasuulku tilmaamay man dakhala masjidana haada waa masaajidkii nebiga man dakhala masjidana haada liyatacallama khayra aw yucallimahu kaana kalmujaahidi fii sabiili اllah waman dakhalahu ligayri dalika kaana kannaadiri ilaa maa laysa lah wuxuu nabigu tilmaamay alayh isalatu wasalaam masaajidkaygan cidda soo gasha masaajidka yagan cidda soo gasha si uu khayr u barto ama uu u baro wuxuu la mid yahay mujaahidka oo kale dagaalamilka ilaahay ayuu markaa la mid yahay xagga ajriga xagga thawaabka waynu ognahay markaa jihaadkii qiimo markaa u leeyahay cidda u gasha cidaan sidaa ahayna wuxuu la mid yahay qof daawanaya wuxuuna markaa awna lahayn wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wassalaam oo aathaarta lagu sheegi doono idaa maata alinsaanu inqataca camaluhu ila min halaath qofku markuu dhinto camalkiisu uu go'aa saddex uun mooyi saddexdaa waxaa ka mid ahaa aw cilmin yuntafacu bihi cilmi laga intifaaco oo ka hadha waxayd sadaqa jaariya sadaqa socota oo dureeraysa awqaaftii oo kale ah cilmi laga faa'iidaysto walad saalixa oo u soo duceeya marka waxaa ka mid ahaa waxyaalaha markaa camalka qofku ku soconayo uu joogtada ku yahay cilmiga markaa laga faa'iidaysto ayaa markaa ka mid ah waa qof dhintay oo nool saasoo kale weeyaan qof dhintay oo nool sadaqadu waa saasoo kale cilmigu waa saasoo kale ubadkuna waa saasoo kale adoo dhintay oo tegey ayuu ajri iyo thawaab markaa ku soconeed markaa helaysaa wuxuu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantasichu min alcibaad walakin yaqbidu alcilma biqabdi alculamaa
حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. النبي عليه الصلاة والسلام إلهي سبحانه وتعالى علمك ما طوبايو أما ما قاضايو سقوا أدومها مركا كسيبايا ولكن علمك وحا لغو قبنايا وادي ما شدع علماء أي تغيان حتى إذا لم يبقى عالم ضبطك أما حتى إذا لم يبقى عالما إنه عالم هارين أما ونرهيبين dadku waxay samaystaan qaar madaxa oo aqoon lahayn oo wax la weydiiyo oo fatwooda cilmi la'aan way lumeen dadkana way lumiyeen habeen ka soo xamaqaysa qaar media soo fadhiisanayo diinta wax ka sheegaya aqoon diineed aan lahayn meelay ku soo barteen la garanayn haddana saa u jeedaya ahkaam sheegaya xukun ridaya umada luminaya baadigu yeedhaya dhabarka garaacaya ayaad maqlaysaa wa aakhiru zamaanka wuxuu nabigu ka warramay weeye aakhiru zamaanka wuxuu markaa nabigu ka warramay markaasi weeye waxay samaysanayaan qaar markaa aan aqoon lahayn marka la weydiiyo ayay iska fatwoonayaan way lumeen wayna lumayaan ama waa lagu soo qorayaa intaas waxaad arkaysaa oo markaa baraha bulshada su'aal lagaga jawaabayo oo kala duwan dadaan ehel oo ahayn munaasib oo ahayn dadkeega ahayn markaa tilmaamaya kadibna markaa soo dheeganayo qofku si fudud aw iskaga soo dheeganayo oo oranayo halkaas lagu faafiyay waayahay wala nabiga ducaysi waxa kamid ah alayhi salatu wasalaam ku ducaysan jiray allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa a'udhu bika min ilmin la yanfa' waxaan ku weydiisay cilmi wax tara waxaan ka magan galay cilmi markaa aan waxba tari ma ka magan galay dacwo badan tahay nusuusta quraanka iyo sunnaha nabiga alayhi salatu wasalaam ee tilmaamaysa أهمية مركا يفضل مركا علم قوليه وحلقة سوغوريا هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه آدم مهم وكنت الماما يو لكن هذا السجناشوغا وحلقة شيء حاجة مركا صناعة الحديث مركا لقاض ليو أي معناها الماما يا برشاد علمي يا مركا قيمه ليه هي بارديس يو أهمية مركا إليه أما إسبر بدي جيامبا علمي يو يا عبادة ده إسبر بدي جيام إلى رجل سوغوريا هذه مركا باب علمية إن أتبرته أيا كاجا خير بدن أنت أصل الصلاة مركا إن أتكتو إمام الشافعي رحمة الله عليه وحوري لقصو قولي ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم فرائض كذب وحكفل بدن برشاد علمك إن المركا ونجرين أيو مركا أيو تلمامي الإمام الشافعي رحمة الله عليه على مركا هو نحرس ده تابعي وينا عطاء بن أبي الرباح با marka wuxuu ahaa ragii cilmiga iyo aqoonta iyo loo daba fadhiyay iyo ahaa nin kamida marka madaxdii muslimiinta ayaa marka kuyu soo galay maalin iyo fatwa la weydiinayo xaramka isagoo inabadiisii la wata marka ka jawaabayo ninaan marka muuqaal badan iyo waji soo jiidasho iyo aan badan ka muuqanin laakiin cilmi saa u daraya oo marka ayuu kuyu u galay ka weydiiyay waa ninka marka si weeyay kuyu marka u galay su'aal weydiiyo markii wuxuu u dardaarmay wiilashiisii iyo inamadiisii wuxuu u dardaarmay inay cilmiga iyo aqoonta barashadiisa markaa oo aad aragteen baydan halkaynu galay oo aragteen halkaynu galay halkaynu istaagnay kuyugaynu galay aad iyo aad ayuu markaas u dhiiri galiyay ahamiyada markaa cilmigu leeyahay ay markaa ay tilmaamaysaa imaamkii weynaa oo kamid ah aymada ahnaafta Alauddin as-Samarqandi Zamarqandi wuxuu leeyahay kitaab la yiraahdo Tuhfatul Fuqaha ayuu leeyahay oo kutubta fiqiga markaa kamida tilmaamaya meelaha loo noqdo markaa fiqiga kamida imaamka kitaabka oo lahaa inana u dhalay baa jirto loo leeyahay Faadimo loo oran jiray kitaabka xifdisanayd Tuhfatul Fuqaha bay dusha ka haysi matniga marka kitaabka ay xifdisanayd Alauddin az-Zamarqandi muftibu ahaa fadada markuu soo saaro waxa weey shaabadiisa ama saxiixiisa ayuu ku dhufan jiray kadibna saxaaxa labaadna waxay ahayd inantiisa ahayd fatwada marka la fatwoonayo fatwada mu'tamadka ah oo magaalada ka soo baxda waa inuu ku saxaaxan yahay Alauddin sidoo kale waa inay ku saxaaxan tahay Faadima bint Ala shaabadoodu marka waa inay ku taalo fatwada fatwa mu'tamar ayay ahayd hadii kale waxay saxaax baa dhiman ayay ahayd heerkaas uu ka gaaray waxa maleynaysan inaan heerka gaadhay ragoo dhan baa raadinaya raguna way daneeyaan meesha lagu sheego wanaaga iyo khayrka lagu sheego aad bay u daneeyaan talabada cilmiga ayaa u soo fadhiisatay kuyu si inta ay u gursadaan waxa shardi lagaga dhigay
تحفة الفقهاء إنك حفتسن أيوة بينتها جورسن كرا علمي مركا يهيرك مركا جارسيسنا يقيمه لها كده من مركا كاساني اللي يراهضه أو شرحي كتاب كان مركا كل شرحي مركاسي أيها حسكودي مركا بدايع الصنايع في ترتيب الشرائع أو كتب فقهي مهم كان مركا كمدا أيوة قري نكاسا كتاب كل جد جيست هدي عن قرآن سكيد جيستنو وحديث لسكيد جيستو وشاطبي ده لسكيد جيستو قراءة مركا لسكيد جيستو نكاسا كتاب كيو صفر استي كدبنا كتاب كيو رما يسترن أيوة كبحي كدبنا إنتي بالسي إنتي أيها السي سدا سكو جورسدي علمي جا يقيمها مركا وسي أيوة مركا كهلي إنه هلا إن أنت وجورسدو كدبنا كتاب كي صدقي وكشرحي وحكو شرح كتاب كلا يراهضو بدايع الصنايع في ترتيب الشرائع أيوة مركا كو شرحي waxaa ku soo koray reerkii fatwo saddexaad baa ku soo korodhay magaalada la yiraahdo Samarqand hadii la yiraahdo waxa hore uga bixi jirtay fatwada uu qoro cala diin iyo faadimatu ala kaasani oo caalima ku soo kornay waa inay saddex saax yeelato fatwadu saddex saxiix waa inay yeelato waa odaygii iyo inantii iyo inankii sodoga loo ahaa saasi markaa fatwadu markaa mu'tamad markaa ku noqonaysa cilmigu qiimaha markaa leeyahay qiimaha ayuu leeyahay markaa hadii la yiraahdo haday noqoto maal يا هذا نقطة علمي يا هذا نقطة أرين كلام مركا لقوه لا يوليه مركا علمي سادراديد وقت أنا كتيرنو نتاجنا هاي وآخر الزمان كأ ولا جد جاي وحآد مهمة ما دام علم يقوليه هاي قيمها يقوليه هاي وقرآن كا يصنها يا هذا الذي مركا ومضبة سدا مركا يوت المعمين أهمية ده مركا يقوليه هاي إن الدلال جار مركا إن نصينه ومد لك مارمانا فوائد كليه هاي علمه لما كهو بكرو وعوم مهمسة فوائد كمدة إن دلاه كقراته ودلاه أدون وكون نقطه أيام مركا كمدة وعكمدة فوائد كذا فوائد آخرة إن الجنة كهسو علم جاد برتي يا قانت هذا الشيء إن الجنة كهسو أيام مركا مهمة وأجر جيسي أو قص عنايو أو مركا أو جايين وعوم فوائد قص عن قف علم جاد برتي إنه درجة اللباد يهي أو أنبيادي أو قصو حاجة مركاسي نبينا عليه الصلاة والسلام وحنوات المعبد مركا أنبيادو إن الدرهم يدينار إنك تجين وإنما ورثوا العلم إن دحالك وها إنه علم جا مركا إن دحالسيين أيام مركا مهمة هيد مركا برشاد علوم الشرعي آديات أي مهمة تهاي وحين نجيسنا سوى والدين فربضن هو يا أبابله أو كل الدجن أو أبتله أو أديرله وحلقوا بتبادي كرا جيل كهذا كتيرنو لقى ساري كرا وحيالا فربضن أو تاجن إن نبرنا أقوان يسان علوم الشرعية إن أقوان يسان أو أقوان تكنوا اللو باهي هاي معناه يقوم هنا اللو باهني لكن كل دلالو أبتك إن دلال جاروسينه برشاد علوم الشرعية يميله كما كان يتجان هديت هاي مساجد ده هديت هاي معاهد هديت هاي جامعاتك بيلها على جبرته أي مركا أي تجان بمركا مهمة واللي بحق مهمة وقت كنا كتيرنو قف طالب العلم جا إنه اسكدروا علمي حلقات مهم علمي أكاديمي إنه جمعيه ولا جم مرمان متكستها حسنات بوليه وحنا نقسم بوليه سايد كنا حسنات بوليه أو وناجوليه جامعات أكاديمي كنا حسنات بوليه قفك وناقسنينا وكلا هذا حسنات بقاطع حسنات كمركا أكاديمي يا حسنات كحلقات لا بد بك قاطع مركا سوي مجعلي إن صاحب بدأ وقت الأركا قاطع وحيدون برارجين عندكم برارجين أيو علمي يفضل أوليه هاي إلهي وحن كبرينا إنه نقولنا كوي إياه إيو أبدكوج إيو أبدكوج با كد دالة إنه مركا أقوني إنه علوم تا شرعية صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاه الله خير الدكتور عيسى محمود عبد الله آدي أدو مهتسي هاي وقت قصده وصاكوا بي دكتوركو وانا فايديي وانا وناتشي عاو مركان هذا الشدح شيخ بايدين مرتين ملا وايران حدانو وحا استراحة الملاها عاو ضياشي صلاة دوا لغو دهرين دونا لكن واحد يكون بشعرين يا وقتي اللي تكون شريبا اللي تكون إياه فايدين ونقادرنا إن شاء الله تعالى waxaan kusoo dhaweyn doonaa Dr. Faisal Maxamed Ali oo runtii aad garanaysaan oo aan masaajidkana ku cusbayn oo aasaasi jaamacada Najaax Burco
وشيخ runtii lagu yaqaano inta badan mutajawila oo mara gobolada Soomaaliland inta u badan yihiin wax ka jeediya iyo meelo kalaba sheekh ayaan ku soo dhaweynaya Allah barakeeyo falyatafadal mashkuuran maajuran insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا ليال وقته كل بواسكك وبيهاي ولا لك الشيخ عيسى أيا سمقل وقهض لي qiimaha cilmiga sharciga ay u leeyahay intuu inoo sheegay qofka u fiirsada si fiican u fahmaa waxa hurtila ah hadii Ilaahay khayr la doonay inuu ku dadaali doono isaga iyo cidda uu mas'uul ka yahay inay cilmiga shariicada bartaan ciwaanka kelmadda lagu magacaabay hadaynu dib u milicsano وحوي التعليم الشرعي وآثاره في صلاح المجتمع برشاد شريعة الإسلام كا يراد كا إكاقات تغيسو حاجات انت مجتمع حيث ويدين لي وما دي محيو باهن تايسيو هاقاكتو وما دي سامحيكو هاقاكتا الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة إمامك وإناي من أئمة أهل السنة أيام مقولة إيا حضل يوير نقطي هالباك أيو يري تاسو أهيد لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها ومدى آخر كيدو ومدى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما هقاقيسو إلا وحي يكو هقاقين أول كيدي آخر كيناقا كميدا إنه كو هقاقي مينو إلا أمدي نبي محمد عليه الصلاة والسلام بالله وقودي يقرونتي وناكسنا وحي كو هقاقين مويا وحكا لكو هقاقي مينو مركوا هالباقي ميل لقا قلوية موضوعين نكو هادلين إن عكلا وحن دونيا si hadalkaygu uu yeesho waaqic iyo tusaale ku dayasho mudan inaynu aad u milicsano nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam markii alla soo diray mujtamaci laga soo dhex saaray sidee buu ka muuqaalku lahaa muxuu ahaa mujtamac kala tagsan wuxuu ahaa mujtamac reera ah وها مجتمع نسبحين إسدولمية دقال قاركود أفرت السنوات الصعداء إسكو قاضة جيلة كلا دعاء أنا يسدلا كضعيف كاه تنشلع صدا كفانا غير نبضة أنا اسمقل عد أطالي سوكا أي كامر قاتن آنو تشيرين يعني مقالة إلهي أنا قونين سبحانه وتعالى وحكلي أي قيمة يعني أي هيت غيرك يا قبيلة يقفكوا عدا وسكو هلينا يكون حيرا ومدى النبي محمد إلهي كصدح صاري عليه الصلاة والسلام صدح يلا باتنص النضات أيو دحجوغي صدح يطبنص النضات مدينو كدحجو مكايو لجوغي طبنص النضات يبي لنا وحول جوغي مدينة نبي عليه الصلاة والسلام ومدي النوع أهيد وبدلي وحكسو صاري أمد ولا لا كجاري ولا التنماذا إني حاسس كي سفران أما أي كهميان أما أي دونان إن ولا الكيس مسلم كاه إنه هذا الله بحاس بان ليه هي مد بان كفر يمرك عدة بحضه جورسو حولها يقرأ أنت يكتب وحيد كقاعدة كرتنا كقاعدة وحيد كتجي كرتنا كتج أمد هجان أقبشي ولا يعيد أترى هذا أقبشي أمد قلوب تود طاهر تهاي
وحسد إيا إسنعيب إيا أورك الله يسكنعو وحاصونا كسفودي سؤال شو حيتاي مركا دبا maxay ku si maxaa taahiriyay maxaa hagaajiyay maxaa bedelay jawaabtu way sahlantay wahyi baa bedelay waxa bedelay wahyi samada ka yimid oo quraanka kariimka ah iyo Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sunnadiisii oo iyaduna wahyi ah ayaa bedelay iyo qudwadii ay ku dayanayeen oo rasuulka alayhi salaatu wasalaam intaas bedeshay maal badani ma bedelin ciidan soo weeraray oo isu tubayna ma bedelin waxa bedelay qalbigooda waxa galay hadyigii iyo hanuunkii nabi maxamed la yimid alayhi salaatu wasalaam idan hadaynu inta hadaba fahamnay isbarbardhiga hadaynu fahamnay maanta alxamdulilah waxaynu nahay mujtamac muslim ah oo min ahli laa ilaaha ila allah oo masaajidadoodii camiran yihiin laakiin xanuunna u eg xanuunadii quraysh ku dhacday iyo carabtii xilligaa joogtay xanuunadii qaar ka mida inahaya oo aynu la noolnahay culimmaduna siday sugeen qofka muslimka waxaa laga yaabaa bacdu akhlaaqi ahli lkufri in laga helo dadka gaalada ah akhlaaqdoodii wax ka mida in laga dhexelo sida nabigu uu ku yiri alayhi salatu wasalaam abidar innaka mru'un fiika jahiliyya markii walaalkii oo bilaalo habashiya asalkiisuna adoon ahaa oo ku yiri yabna sawda kii hooyadii madoobaydow ayaa nabigu carooday alayhi salatu wasalaam dadna wuxuu ku yiri khaslad iyo waqiyad jaahilinima kugu jirta haddaba markaas aynu sidaa eegnaybay waxay timid muxaadaradan ciwaankeedu inuu noqdo walbaraadka uu leeyahay cilmiga sharciga maanta walaalayaal dadkii muslimiinta ahaa ghazw al-fikri wax la yiraahdo gaala dhulkoodii qabsatay mudday haysteen khayraadkoodii bay gurteen way ka guureen waxay waanu idin xoreynay kaanama dadku adoomahayeen استقلال وامحي يعني مركي هore mustaqil ma waa lagu haystay qof baa ku haystay markaas uu ku sii yaraday inama sii wadadayna halkan uu degay maskaxdeeni iyo qulubteeni ayay degeen waxa daliil u ah qofku waxa laga yaabaa ubadkiisa cilmi hunguriga baranaya inuu wax walba u huro nood iyo noolba inuu huro ka shareecada baranaya waxa laga yaabaa inuu ama culimada ku yiraahdo bal inaan ka qabto bilaash wax ugu dhiga aniga ay soo martay jaamacad baanu burco ku haynay ragaanu naqaano mas'uuliyiina baa yimid ubadkiisii kale jaamacadihii buu bixiyay fiigo bil walba isaga ka shuba anigana wuxuu igu leeyahay inantaani inan buu ii keenay waxaan doonayaa marka ay geeridu igu soo xaadirtay inay yaasiintee bal inanta ii qor halkaas mujtamacu maraya cilmigii hungurigee laa yuqaddim walaa yuakhir oo haddaadan xitaa baran aadan waxba u noqonaynin ayaa halkaa aynu weynaynay kii shareecadana waynu suqa yaraysanay markaasaynu salaax iyo wanaag doonaynaa dhinaca kale shiikhii ama ardaygii quraanka dhigayay $5 iyo $10 uu ka qaato toosh weyn baynu la daba sidanaa toosh baynu ku haynaa wadaadadu iyaga lacagtii ummadda gurtay wadaadadu iyaga sidaasa way lacagtii ummadda qaadeen kuwa boqolka $1 iyo kunka $1 qaadanayana waa la weyneynaya inankii yaraayo macallinka ah ee labada gelinba ilmahaagii quraanka ku baray aakhiradiisa badbaadinayna waxaad ku qabatay toosh weyn miidiyahana ka buuxda arrimahaas موضوع متفبل عليه هي أنا كنت يقالين هذا صون نقضه وحتلمام يا أفر قضب أو تلمام هي إن بلشدو هذا قاعدة علمي الشرع هذا أي كوها جاجس قضب ككوان وحكوشرا خير يدي أين يوانك سنتون نقضة ضد خير قبا بلشو
haddii laga helo dad khayr qaba oo bulsho hagaagta sharaf leh iyo karam iyo macnayaasha waaweyn ee bulsho ku dhisanto intaasoo dhan waxaa laga helayaa cilmiga shareecada daliilu dalik nebigu sala allahu calayh wasalam xadiiska bukhaari iyo muslim soo saareenaya xadiisu mucaawiyata bn abi sufyaan radia allahu tacala canhu can abiih wuxuu leeyahay nebigu calayhi salaatu wasalaam man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin ka ilaahay khayr la doono mantu qofna way noqon kartaa bulshadoo dhanna way noqon kartaa waa min alfaadi alcumuum ciddii ilaahay khayr la doono ilaahay wuxuu waafajiyaa fahamka diinta oo shareecaday bartaan culimmadu waxay tilmaameen sida alimaam nawowi iyo ibnu xajar iyo kayrkoodba iyo shaykhulislaam ibnu taymiya xadiiskani wuxuu tilmaamayaa cidda cilmiga shareecada baratee fahamtaa in ilaahay khayr adduun iyo mid aakhira labadaba la doonay waxaa sidaa inoo sheegaya nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam dhinaca kale xadiiska waxaa laga fahmayaa hadalka carbeed shareecadu ileen waxay ku soo degtay af carabiye waxaa jira wax la yidhaahdo mantuuq iyo mafhuum hadalka marka sidaa loo yidhaahdo qasadka ugu horreeya wixii looga jeedo mantuuq baa la yidhaahdaa ka tabaca ee laga fahmayana mafhuum baa la yidhaahdaa marka xadiisku muxuu yidhi kii ilaahay khayr la doono diintuu fahamsiiyaa macnaheedu markaa wuxuu noqonayaa kii aan diinta fahminee diinta baran khayr lalama doonin marka bulsho cilmi baran weyday shareeco baran weyday waa bulsho khayr laawo ah halkaana waxaynu ka garanaynaa raadka weyn ee shareecada barashadeedu ay ku leedahay ummaddan inay islaaxdo hagaagto taa haddaba waxay noqonaysaa mustawahan aynu joogno garaafkan aynu taaganahay kor aynu u qaadno barashada shareecada oo hadday waalid noqoto hadday xukuumad noqoto hadday noqoto shacabka oo dhani aynu yool iyo hadaf ka dhiganno in aynu cilmiga shareecada barashadiisa aynu kor u qaadno qodob waxaa ku sii hoos jira sharaf baa iyadana ku jirta nebiga calayhi salaatu wasalaam xadiisu abi hurayra fi saxiixayn ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabada maalin su-aal weydiye waxay yidhahen man akramu nnaas dadka yaa ugu sharaf badan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam atqaahu karamkana waxaa looga jeeda man akramu nnaas ay man akharuhum khayran yaa ugu khayr badan dadka hadda eega halbeeg baa nebigu markaas sheegay calayhi salaatu wasalaam atqaahu lilah ka ilaahay ugu cabsida badan ilaahay baqitaanka uu ka baqaya ka ugu badan ayaa ugu khayr badan waxay leeyihiin laysa can hada nas'aluka kaa kuma annaan weydiin xagga alla ka cabsiga kuma annaan weydiin ee si kaloo loo kala khayr badnaan karaa ma jira wuxuu yidhi fayuusufu nabiyullah ibni nabiyillaah ibni nabiyillaah ibni khaliilillaah haddaba waxaad sheegaysaan nebi yuusuf oo nebi ahaa oo ina nebi ahaa oo ina nebi ahaa oo ina nebi ahaa oo afar tirsada markaasa laysa can hada nas'alu kaana kumaanaan weydiin facan macaadini alcarabi tas'aluun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ma waxaad hadda ay weydiinaysaan carabta iyo qabaa'ishoodu siday u kala fiicnaayeen khiyaarukum fi ljaahiliyati khiyaarukum fi lislaam baa nebigu calayhi salaatu wasalaam taa haddaad doonaysaan halbeeggeedu waxa weeye markaad jaahiliyada joogteen kuwiinni ugu sharafta badnaaya xagga nasabka aad door bidi jirteen oo bimacnaa reerkii lagu yaqaanay jaahiliyada reer wanaagsan oo martida soora oo makaarim alakhlaaq ilaaliya oo reer wanaagsan ka soo jeeda kuwaa haddaad u jeedaan kuwiinnii xilligaa sidaa ugu wanaagsanaa marka islaamka soo galaanna iyagaa khiyaara laakiin waa goorma idaa faquhu markay diinta fahmaan taa marka waxaynu ka qaadannay barashada diintu waa waxyaabaha reeruhu ku kala hormaraan reeruhu maanta way baratamaan qoys jecel in qoys kale laga fadilaa ma jiro wuu ka dagaalamayaa haddaba haddaanu sirta idiin sheegno qabaa'ishu waxay ku kala hormaraan waa diinta iyo barashadeeda imise xaafid baad leedihiin imise caalim baad leedihiin taasaa lagu kala hormaraa wanaagguna taasuu ku jiraa waxaa sii caddaynaya cumar ibnu alkhadaab xadiiska imaam axmed warinaya xadiisu abu tufayl wuxuu leeyahay cumar ibnu alkhadaab baa nin la odhan jiray naafic ibnu alxaaris buu maka uga dhigay barasaab
kadibna cumar oo soo socda ayaa wuxuu kaga hor yimid magaalada meel cusfaan la yidhaahdo kaga hor yimid kadibna cumar baa weydiiyey wuxuu ku yidhi magaaladii maka ee aad badho saabka ka ahayd yaad kaga timid oo xilka sii haya wuxuu ku yidhi ibnu abza cabdiraxmaan ibnu abza radia allahu tacaala canhu saxaabigaasaan kaga imid wa huwa markaasuu cumar ku yidhi man huwa ibnu abza oo waa kuma ninkaasi markaasuu mawlaa min mawaaliina waa nin addoon ahaan jiray oo aanu xoraynay markaasuu astacmalta almawaali ma mawaali ayaad ka dhigtay madax markaasuu innahu qaari'un lilqur'aan qur'aankuu yaqaana waa xaafid alqur'aan wayaclamu alfaraa'id faraa'idana wuu yaqaanaa iyo dhaxalka iyo wuu yaqaanaa markaasuu yidhi أما إني وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين هذه أركو سيدا يا وحكو شيغا يا النبي محمد باهروسي شيغا عليه الصلاة والسلام وحيري كتاب كان قرآن كاه قولنا إلهي وكوريالي يا قولنا هوسبو كودغا قولنا دي قادتا هذي دونان نصب أهاني وحلقان وحيابها عالم بدا آدم hoos isugu eegaan haba ku sugnaada kitaabkan hadduu qaato kor buu noqonayaa kii wax ismoodayena kitaabkan hadduu ka santaago hoos baa ilaahay yeelaya qodobka labaad waa cumuumu nafciga cilmigu waa caam bulshadii waxay noqonaysaa bulsho naafica nebiguna sala allahu calayh wasalam cilmigan iyo hanuunkan wuxuu ku shabbahay roob samada ka soo da'ay dhulkiina wuu qaybiyey sida dadkuba u qaybsamaan waxa dhulka ugu fiican dhulka biyo qabatinka leh dalagana soo saara ka waxa la mid ah buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ka cilmigan barta dadkana bara wuxuu la mid yahay dhulka biyo qabatinka leh wax soo saarkana leh taasina waxa laga qaadanayaa nafciga cilmigu inuu bulshada ka yeelayo bulsho naafica oo wax soo saar leh oo horumar leh waxa kale oo kamid ah cilmiga sharcigu wuxuu ku barayaa rabbiga waana shayga ugu qaalisan ee ummadii ay ku islaaxdo inay rabbigeed garato sharcigiisana garato ay weynayso qof kasta oo ilaahay caasiya qof kasta oo diinta ilaahay ku tuntaa fa huwa jaahilun birabbih rabbigii iyo khaaliqi abuuray buu jaahil ka yahay wa ilaa hadduu garanayo allah caza wajal iyo cadamadiisa sharcigiisana waa weynayn lahaa rabbigiina waa garan lahaa waa jeclaan lahaa wixii alle subxaanahu wa tacaala magacyadiisa wanaagsan tilmaamihiisa sarsareeya marka uu garto qalbigiisa ayuu ku weynaanayaa allah subxaanahu wa tacaala haddii ilaahay qalbigiisa ku weynaadana wuxuu u hoggaansamayaa sharciga ilaahay subxaanahu wa tacaala ummadda noocaas aynu u baahannahay ummad san taagaysa oo sharcigii ilaahay ku soo dhiiranaysa oo waxay doonaan sheegayaa waa ummad jahliya oo rabbigood aan garan waxaa ka mid a cilmiga shareecadu bulshada wuxuu ka badbaadinayaa muhlikaadka saddexda ah almuhlikaat الثلاث مهلكات عقدية مهلكات في التصور هي مهلكات أخلاقية وحيابها وحلاقة أما وحنا عقيدين يا هالنقط أما فهم لفهم ينضلش يا وحكى الصعدة هالنقط أما أخلاقها النقط صدح دام مهلكات ووحيابها مجتمعات كهلاقوي قوم لوط إيك محلقوا هلاقي إلهنا ما يرهمين فاحشة ويلي مادي فأهلكهم الله قوم عاد قوم ثمود قوم نوح مهلكات كاس أي كابت بعدين هي واحد قرنيسا وحي عقيدة هذا وحيالي يا وحي أو وحيالين نفيع بن الحارث أبو بكر رضي الله تعالى عنه صحابي قال هذا حديث ورنا في الصحيحين وحليه ولقد نفعني الله بكلمة سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمل فتنذي الدقال كي صحابة قاركود دحمري وقعة الجمل ليلاهدو دقال كائنا كقيب قاطو سيف قاطو ولالك يوم مسلمة آن سيف قاطو إلهي وحويك قلنا بدقليه حديث النبي كم مقل هذا هو حديث قليه أي إلهي يقبض بادي يبوليه حديث كاسي محوها لن يفلح قوم
wallow amrahum imra'a qolo ma liibaanto mas-uuliyaddii ay lahaayeen gabadh huwiyo u dhiibay oo madax ka dhigtay gabadh madax ka dhigatay ma liibaanaan ama yaanay liibaanin ama wuu habaanayaa nebigu sala allahu alay wasalam ama war buu inoo sheegaya oo inaanay liibaanaynin marka labada sidii kastoo loo dhigaba xadiiska macnihiisu wuxuu noqonayaa inaanay liibaani agtooda oolin ciddii dumar madax ka dhigata marka wuxuu leeyahay xadiiskaasaa ilaahay ugu badbaadiyey bal ka warran shareecada qofka bartee ku camal fala ba bulshada shareecada ku camal falatee u xukun tagta imise dhibaato ayaa ilaahay ka badbaadinaya imise fitan caqadi baa ilaahay ka badbaadinaya walidaalika firaqa soo maray ee inxiraafay ee nebigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam 27 inay noqonayaan bixamdi illaahi caalim faqiihay kama mid noqon taasina waxay daliil u tahay in cilmigu uu badbaado yahay oo lagu badbaadayo waxaan ku soo gunaanadayaa 20 daqiiqo laga qabtay way dhamaadeen minutkaasaan ku soo gunaanadayaa maalmahan waddankeena buuq baa ka jira dad badan baa miidiyaha isticmaalaya waxyaabo dhacdhacay ayaa laga warramaya anuu kama hadlayo hawshaa kama hadlayo waxaan doonayaa inaan kaga faa'iidaysto qofkii doonaya diintan inuu gargaaro cilmiga sharciga baro qofkii doonaya wallaahi alladii laa ilaaha illaa hu gaalada iyo cadowga islaamka wax kaga adag qof sharci baranayo kitaab kala furay oo diin baranaya inaanu jirin diinta waxaynu ugu gargaari karnaa inaynu cilmiga shareecada barashadiisa iyo faafidiisa iyo ku dhaqankiisa inaynu ka awoodo saaro kaasaynu ku badbaadaynaa ka ilaahayna garansiiyo intaasaan ku soo gunaanadaya wallahu tacaala aclam wasala allahu wasalama wabaarak وأنعم على عبده وخليله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جزاه الله خير الدكتور فيصل محمد علي إلهي سبحانه وتعالى كاباليو وصوكو بي سقنا كنت وحنا كما تجن إلهي سبحانه وتعالى وأنا ذا سينقو أنفعه الدين تودا قونو يشاه الله ينقدقه وبدكوده براه waxaan kusoo dhaweyn doonaa insha Allah ta'ala Sheikh Abdurrahman Ahmed Abyad oo runtii kamid ah culimada Scandinavian-ka maraakista ku haya magaalo kamid ah Denmark iyo runtii Yuruba waa sheekhuna soo booqda oo runtii waa soo maraa isaguna insha Allah ta'ala wixii uu ku dari karo mawduucaasi aynu ka dhageysan doonaa faliya tafadal mashkuur insha Allah جزاك الله خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وادي السلام يا الله يمرك السلام عليكم ورحمة الله صلاة المغرب كانوا كبحناي نبا إعلام شديدي تنيجي ما جوارت نقاس نقول لك سموه مركز صلاة الله كبحي على طول قلي ما شاء الله جزاك الله خير ورتانو ما هي دكتور تكاتروا يقول ريين دبوا لكن لقى صحي أضيع دكتور رمضو سيدا أسهل أنت هاي مسجد على متان آير لقى بحي وفرصة ونكسمه فرصة سعيدة معي أنت كده ولا لا الموضوع موضوع وين الله دكتور وحكاه اللي الموضوع وجودها وحكاه اللي علمك الشرعي جاه إيو سيدا وبالشدة وهجاتيو الله دكتور بدأ علمك الشرعي جاه قيمه سينوش هاجي بدأ علمك الشرعي جاه يسامينتي سينوش هاجي waxaan rabaa anigu inaan dhinac kale ka fiiriyo kayf cilmiga sida oo qiimaha badan sidee buu bulshada u islaaxin karaa maanta cilmiga waynu haynaa culimaduna waynu haynaa culimadu inta waxay nagu wacdiyaysaa war cilmiga sharciga waa fiican yahay innaguna waxaynu leenahay dee wuu fiican yahay dood kama taagna dabcan war cilmiga sharciga haddii lagu dhaqo bulshadu barwaaqi gaaraysaa innagu waxaan leenahay nacam barwaaqi gaaraysaa sax wey laakiin waxay u badan tahay inay arrintu tahay jugjug meeshaadi joog oo musallamaad aynu wada rumaysannahay iyaynu mararka qaarkood aad isugu celcelinaynaa waana arrin wanaagsan oo dabiicada qur-aankaaba waxay tahay fadakir waani qisada nebi muuse imise goor baa lagu soo celiyey haddii uu ahaan lahaa
buug bani aadam qoray ilaahay kitaabkiisu ma ahee hal mar baa qisadaa la sheegi lahaa laanna waa laga daali lahaa haddii kale qofku inuu wuxuu hadda kuu sheegay haddana ku celiyo laakiin waa ilaahay kalaamkiisa iyo tarbiya looga jeeda ku celcelintu marka waa ina anfacaysaa waxaan leeyahay kayf cilmigu koow horta waa inuu noqdaa cilmi xallinaya mashaakilka mujtamaca sidee buu u xallinayaa waa inuu noqon karaa cilmi la falgelaya bulshada innagu haddaynu soomaalina waxyaalaha in haysta waxaa ka mid a tafaraaruqa qabyaaladda iskhilaafka waxba isla helid la'aanta wada shaqayn la'aanta mashaakilkayna haystay ka mid tahay diintuna waxayna amartay in la isu yimaado oo khatiibku waxa laga inagu akhriya wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu laakiin aayaddu la inoo sheego qof mu'minina uu ku dhaqmayaa laakiin sidee baynu ugu tarbiyadoobi karnaa talo arrinkaas anu meeshaan ka imid hadda waaba la sheegay maadooyinka muhiimkaa waxaa ka mid a muusiga muusigu kan la dhegaysto ee fisqiga iyo balaayada xambaarsan keliya ma aha looma dhegaysto keliya iyagu markay muusiga ka hadlayaan uma dhegaystaan keliya markuu maaddo tarbiyad yahay inuu yahay wuxuun dee carruurta la dhegaysiiyo oo ay isruruxaan laakiin waa maaddo agtooda muhimka ah maxay muhim u tahay wuxuu leeyahay theory nadariyaad fara badan buu leeyahy ilmaha waxaa lagu abaabinayaa dee muusigu wuxuu u bahan laga wada shaqeeyo de tusaale ahaan ninka dee kabanka garaacaya keligii iskama garaaci karo ka durbaanka tumaya keligii iskama tumi karo kan heesaya heesta dee mar buu la eeganayaa wuxuu qawaacid iyo cilmi ay ku socotaa shaydaan ba ha ahaadee mar buu la eeganayaa markuu doono iskama dhawaaqi karo markii la doono si la doono looma garaaci karo carruurta waxay baraan min khilaali muusiiqa waxay ku baraan alcamal aljamaaci inay dadku wada shaqeeyaan inay tahay muhim waxay ku baraan min khilaali muusiiqa waxay ku baraan qiyaadada iyo ahamiyadda ay leedahay ninkan taaganee saalehe faraha saalehe hoggaaminaya haddaanu isagu sidaa lahayn wuxuu isku dhex yaacaya carruurta waxay ku baraan wuxuu inuu wakti u bilaabmo iyo wakti u dhammaado uu yeesha ay muhiim tahay waayo iskama soconaya dee kabanka ninku iskama garaacayo maanta o dhan wakti buu leeyahay daqaduu leeyahay sakanuu leeyahay qaab loo garaacuu leeyahay riyaadada waxaa la yidhaahdo sportiska isna waa la mid min khilaali sportis riyaadaadka ama ciyaaraha dhexdooda carruurta waxay ku baraan inay ciyaartu u baahan tahay qaanuun saa darteed baa qaarkood laga dhagaa siidhi wale qaanuun yaqaana marka uu dabeedna ka yar istaajiya isaga la midkaa uu istaagayaa oo ay qaanuunku u fahamsan yahay wuu saarayaa wuxuu re khalad baad gashay rag buu siinaya halkaasu fadhiisanayaa dadkaasi iyagoon waxba haysan cidlo fadhiya bay gargaraacdeen wax aan waxba ahayn dadkooda bay ku tarbiyadeeyeen waxaa u soo baxay mujtamac ismaqlaya isdhegaysanaya in la wada shaqeeya inay muhim tahay fahamsan ilamaa kalaaska koowaad ilamaa ay secondary ay ku wadayaan innagu mawaad khaamaho muhiimaan haysana bal salaadda fiir adugu salaadda keliya haddii carruurta looga dhigi lahaa iskuullada maaha maaddo cibaada maaddo tarbiyadeed haddii looga dhigi lahaa oo nadariyaad xambaarsan ahamiyadda hoggaanka isu imaatinka ahamiyadda uu leeyahay kala dambayntu muhiimadda ay leedahay ilaa markaa doonta iskama rukuuci karti iskama sujuudi kartide cibaadaadkeen oo dhan ma tirin karo tusaalayaasha aad bay u badan yihiin sidaa darteed walaalayaal waxaynu u baahan nahay cilmigeennu inuu noqdo cilmi mashaakilka mujtamaca xallinaya oo la falgelaya bulshada maha cilmi keliya aynu isku wacdino isku waanino oo ina dhegaysato ina hadday doonto isagoo ay arkayaan muhimiya iskaga tagaan inuu noqdo cilmi carruurta lagu soo tarbiyadeeyo oo iskuulladeenna ka mid a markaan le cilmigu waa inuu mashaakil bulshada xallinaya faqiiha diinta halkan ka akrinaya tusaale ahaan kitaab ulbayc akrinaya ardaydiisu waa inay suuqa tegi kartaa mashaakilka jira soo ururin kartaa dhaato urursan kartaa dabeedna xuluul sharcigeenna ka intilaaqaya ay mujtamaca iyo bulshada u soo bandhigi kartaa
bulshaduna markay arki kartaa qofkan daalibulcilmiga ahay qiimaha ugu fadhiyo markuu ay arkaan mashaakilkoodii oo lala falgelayo cilmigu marka qaarkood sheekh faysal baa ka dhawaajiyey aqoontu maanta waxyaalaha la isku gumaystay ka mid waagi hore xabadaha lagu kala adkaan jiray waa laga gudbay xabaddu maanta waxa ugu dambaysa wey waana waxa ugu daciifsan maanta waxaa la isku gumaystaa aqoonta waxaa la isku gumaystaa dhaqaalaha waxaa la isku gumaystaa siyaasadda ninkii sadaami xoogga badnaa waxaa lagu soo duulay isaga oo sariirta saaran baynu odhan karnaa dee oo dhaqaalihii laga burburiyey xisaar la geliyey oo adduunkii go'doon siyaasaddii laga geliyey oo meelna aanu aadi karin oo mujtamaciisii laga hor keenay oo miidiyaha loo isticmaalo laga dhigay tuka cambaarle oo dadkiisii sumeeyey isagoo markaa dee jiifo in meesha laga tuuran u baahan baa loo yimid aqoontu maanta waxaa la isku gumaysta waa innaga aqoonteennu iyo diinteennu si ay bulshada wax uga beddesho waa inay shakhsiyadda carruurteenna samayn kartaa aqoonta maanta waxyaalaha qaarkood aynu ka qaylinayno waxaa laga yaabaa inu aragno iskuul sidii aynu u baahnaa aan ahayn innaguna waxaynu haysanaa kumanaan iyo boqolaal iskuul boqolaalka iyo kumanaanka iskuul waxaa laga yaabaa hal mid oo sidii aynu u baahnaa aan u shaqaynaynin in waxa ka soo baxa aynu ka wada baqayno sababta ma isweydiisan walaalayaal sababtu wax kale ma innaga iskuulladeennu ma abuuraan ha iga raalli ahaadaan macallimiinta iyo dadka iskuullada ka shaqeeya ma abuuraan idhidhintiga iyo shakhsiyadda ilmaha iskuulladana waxa ugu muhiimsan ee bani aadamku u furtayd wax kala garanaya waxaa weeye ma aha tacliintu wax lagu xamaasho keliya oo inaad injineer soo saarto guryaha dhisa oo dabeedna lacag fiican qaato oo reeraha qaar biila aqoontu waa ka qiimo badan tahay ama dhakhtar meel wanaagsan fadhiisto oo dadka daweeyo isna lacag fiican qaata waxay abuurtaa aqoontu shakhsiyadda ilmaha yarka ah sidee bay ku abuuraysaa qiso dheer ma isweydiiseen weli walaalayaal nimankaa caada westernku dimuqraadiyadda way wada jecel yihiin dictatoriskana way wada necab yihiin waxay xorriyaddu ku sheegaan waa wada jecel yihiin iska dhaaf wax kale xitaa isku aflaan bay jecel yihiin isku heesay jecel yihiin isku qaab bay u nool yihiin isku sibay dharka u xidhaan isku nooc u ahay dadkaas hal warshadaa soo wada saartay warshaddaasi waa manhajka tacliimta ee ubadkan la baraya innaga manhajkeenna tacliimta macallinka fisikiskaa kemistriga dhigaya xil kama saarno tarbiyadda carruurta wuxuu xil ka saaran yahay in ilmihiisu uu hadduu xisaab dhigayo trigonometriga iyo calculaska iyo xariif ku noqdo hadduu wanaagsanaado waa hadduu waxa aad u dhibaya yidhaahdo waxaan sidan ha laga daayo laakiin arrintaasi macallinka tarbiyadda iyo diinta iyo baa mas-uuliyaddaas u taallaa meeshaana waan ka imi sidaa maaha anigu waxaa ii dheer wadaadnimada macallinimadan bartay labada semestera ugu horreeya waxaa la qaataa maadala KLM kuma dhici kartid haddaad ku dhacdo way fadhiyaan odayada waddankan ka wadan haddaad ku dhacdo lagaa yeeli maayo oo dib lagugu dhigi maayo anigu waxaan bartay oo xisaabta waay xataa haddaad macallin riyaadiyaad tahay maadaddaa waanaad qaadataa maxay ka hadlaysaa maadaddaas waa xuruuf la soo koobay kayd waa Christian elna waxay u dhigmaysaa cilmiga bulshada emna waxay u dhigmaysaa sooyaalka iyo taariikhda macallin kastaa wuxuu baranayaa saddexda arrimood waxaana laga rabaa 3 baaragraaf baa jirto wasaaradda waxbarashadu ay leedahay macallin kastaa min khilaali maadatihi maadada uu dhigayo isagoo ka duulaya waa inuu soo saaro arday wata maadadaas way xambaarsan tahay oo taariikhdii iyo diintii iyo bulshadii iyo aragtida nolosha falsafada nolosha ardayna ka aaminsan maxay tahay waan laga dhaadhiciyaa lagu qanciyaa manhajkana waa inay ku taallaa tusaale basiida laga yaabo ilmaha yar galaaska afraad dhiganaya ama labaad ama saddexaad waxa doontaba dheh marka xisaabta loo dhigayo inagu marka qaar waxaynu isticmaalnaa taraqa yaryare 1 2 3 lagu daray 3 taraq waxay la mid tahay 6 taraq waynu isticmaalnaa halka waxaad ku arkay 3 qof oo qaawan iyo 3 kale oo qaawan oo la isku daray waxay la mid yihiin 6 ardayga maxaa la barayaa horta xisaab baa la barayaa 3 lagu daray 3 la mid tahay 6
ziyaada calaa daalika maxaa la baraya dhaqan baa la baraya inay qaawanaantu ay caadi tahay bulshadana dhaqankeeda ay ka mid tahay macallinka waxaan dhigayaa wuu yaqaanaa soo bartay saa darteed wuxuu marka qaarkood dood ka abuurayaa maxaad u aragtaa sawirkan ya dood baa la gelinaya saa darteed walaalayaal waqti waa dhamaaday ayib saa darteed cilmigan iyo aqoontani waa inay abuuri kartaa si ay bulshadeenna wax uga beddesho shaksiyadda waa inay abuuri kartaa saa darteed manaahijteenna wasaaraduhu sameeyaan ama hay-ad ay noo soo sameeyaan waa inay tahay manhaj qofka dejinaya uu markii hore u fekeray ilmaha aad u baahan tahay inuu soo baxo waa nooc ma ah sidaa darteed aqoontu waa tools loo isticmaalayo ilmihii soo bixi lahaa innagu ma haysanaa kuwa caynkaas oo kalea waxaan u malaynaya inugu yartay xitaa inu haysanadee xataa haddaynu haysanana macallinka u tababarnaa isaga laftiisu inugu yari macallinkan markaa wax dhigaya xisaab dhigaya chemistry dhigaya waa inuu diintiina wax ka garanayaa maaha inuu sheekh faysal halkan inagaga waaniyo diintu way wanaagsan tahay war diinta ku dhaqma mujtamacoo dhan waa inuu diinta xambaarsan yahay oo qof kastaba ay diinta xil ka saaran yahay oo dhaqankii bulshada xil ka saaran yahay kaasna waa qodob si ay u noqoto diintu wax dadkii wax ka beddela ama cilmiga sharciga ahaa waa inuuna ku ekayn masjidka ee uu iskuulkii yaalla xadaanadii yaalla jaamacaddii yaalla secondary iskuulkii yaalla macallinka tarbiyadda keliya aan u oole macallimiintao dhan waa inay ku training garaysan yihiin diintiina garanaya kow cilmigu waa inuu mas-uuliyad xambaarsan yahay mas-uuliya marka qaad waxyaalaha laga dacwoodo waxaa ka mid a ardayga macad buu ka soo baxay oo caynkan weeye saa markuu macad ka soo baxana daaci noqon maayo su-aashu waxay muxuuna u noqonaya waxaanu daaci u noqonayn waa xilli diintii baa la bar maxay diintu islaaxin weyday oo sidii abaadar oo kale markuu qur-aanka maqlay ugu addimi waayey ama sidii tufayl ibnu camar oo kale markuuba islaami uu odhan waayey rasuulka ilaahu idir dadkayga ii dir khalalku xagguu ka jiraa aan meeshii hore dib ugu noqdo khalalku wuxuu ka jiraa diinta aynu baranayno iyo culumta aynu dhiganayno marar fara badan waxaa loo dhiganayaa ka nadariyaad fiqhigii buu baranayaa fiqhu shaafici matni hebel 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 ninkii waad buuxisay caalim buu noqday masaa'il fara badan buu ka jawaabayaa laakiin inuu mas-uuliyad qaado oo daaci noqdaa waxay u baahan tahay wax kale u baahan tahay wixii kale u baahan tahay waa mawduuc iska dheere wixii kale u baahan tahay inaynu hellayn u baahannahay markaa saa darteed buu markaa qofkani noqon karaa qof daaci oo mas-uula waxaan ku khatimayaa dacwadu waaga cusbee saxwadu masaa'il bay daweyn jirtay waxaa ka mid ahaa khuraafaadka in lala dagaalamo shirkiga in lala dagaalamo bidaca in lala dagaalamo fisqiga in lala dagaalamo aad baana culayska loo saari jiray waxyaalahaas wax mudaa maanta inay soo yaraadeen waana waxyaalahaas dhigashada keenay oo dabadeedna qofkii daaciga ahaa uu arko inay wax kastaba day hagaagsan yihiin maanta waxaynu u baahan nahay waxyaalo badan baa inoo soo galay waxaa badan inoo soo galay intaanay xeerihii fanaal kala dhicin in manaahijteenna waxbarashada ay ku jiraan culimmadu ay ka muxaadareeyaan duruus laga bixiyo sida feminismka iyo aafadan haweenka iyo ragga in col laysaga dhiga waa madhab jira oo falsafadihiisa iyo taariikhdiisa iyo khalfiyaadkiisa leh humanismka in akhlaaqdaba inta la iska tuuro la yidhaahdo warwadaada qofkan maxaad ka rabtaa maxuu kuu geystay adiga miyuu adiga ku caayey hadduu dee khalad sameeyey ama dembaabay ilahay baa ka xisa aduma ilahay baa tahay faraha ka qaad madhab jiro waay oo meeshaba ka saaraya qawaacid guud oo alamr bilmacruuf wanahy can lmunkar ay ka mid tahay in mas-uuliyad mujtamacuu jiro oo qofka bani aadamka a santar laga dhiga isaga dabeedna la yidhaahdo qofkan uu wanaagsan yahay haddii adigana waxba kuu geysan wuxuu doona ha yeela gardarrada daa wadaad waad gardaran tahay waxaa ka mida dimuqraadiyadda innagu taynan qabiilaysan waa mid adduunyada ku cusube laakiin lafteeda in aad loo biyo dhiijiyo aad iyo aad looga hadlo waxaa ka mida xuquuqulmar'a waxaana yidhahdaan waxaa ka mida falaasifada galbeedka inaynu aragti ka haysanno kani muxuu aaminsan yahay kani muxuu ahaa folter muxuu ahaa
Immanuel Kant muxuu ahaa Marx muxuu aaminsanaa inay culimadu baxthi dib ugu noqdaan oo ardayda macaahidda loo dhigo kuwa jaamacadaha loo dhigo waxay naga badbaadinaysaa arday iska maran in nimanka aaraadooda lagu akhriyo dabeedna uu qaato inay aqoon iyo cilmi tahay iyageena aan waxba ka fahansaneen aanuna aqoonna waxaan ku gabagabeynayaa walaalayaal waa mawduuc aad iyo aad u xeel dheer sidee cilmigu saamayn u yeeshaa cilmigu sidee uu bulshada saamayn ugu yeeshaa waa mawduuc weyn oo u baahan xagal ama angalis maxaa loo ohan jiray xagallo fara badan in laga eego dhinacyo badan laga eego oo dad takhasusaad kala duwan lihi ay fiiriyaan dabeedna diraasaad iyo wax dhaba laga soo saaro marka camal loo bedelo tanina waa ka mid inaynu isku waarino isku wacdino isu sheegno wiilaan ogaano ahamiyadda mawduucan uu leeyahay cala alaqal aan wax ku ogaano waxaan ka baryaa subxaana wa jalla inuu nagu anfaco kelmadihii culimmadu inoo jeediyeen anigu yar baan ka daba tuuray maraan aad u fogeyn baan la ii sheegay in nadwi ay jirto mawduuca ka hadlaysa magaalada Hargeysa waa magaalo cilmi culimo badan iyo akhyaar badan ay joogaan magaalada cilmina cilmigu waa badahay culum kalena way soo gelaysaa arrinkaa marka waa in la ogaado culum kaloo fara badanna iyana way soo gelaysaa marka dadku waa inay u toog hayaan oo ugu toog hayaan si cilmi iyo caqli iyo xikmad bale meesha maanta la iska soo galaan waa dhalinyarada iyo haweenka waana mashaariic madruusa mashaariicda qaarkood laakiin aan luga badan ku taagnayn aqoon ahaan iyo tajrubo ahaan iyo taariikh ahaan intaba inuun durbaana la gargaraaco mooye aan ku taagnayn wax badan aan ku taagnayn ilaahay nagu anfaco culimmadu kelmadaha inay yidhaahdeen kuwii diintooda kuwada dhaqma ee ku toosa ee ku baraaruga khataraha ku gadaamanna ilaahay naga dhigo jazaakum allah khayr mala waan dheereeyaan maraynayaa assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu جزاه الله خير فضيلة الشيخ عبد الرحمن أحمد أبيض إلهي بركايو وأمهاتنا قيناه وحينو بنحيي إنay macallinimadu tahay xirfad la barto sida injineernimadu ay u tahay xirfad la barto waxa uu noo bixiyay in manhajka waxbarashadu uu soo saaro qofkii loogu talagalay inuu soo saaro marka wuxuu bixiyay in hawl badan ay inoo taalo waxaana la yiraahdaa ummad haddii la doonayo in la gumaysto ama nolosheeda wax laga bedelo waxaa loo soo raacaa manhajka waxbarashada ama waxaan la yiraahdaa maaragtay tacliinta qaabka ay u dhisan tahay marka injineerkii bay soo saaraysaa marka injineer liita oo guri fiican dhisan hadduu ku soo baxo waa khasaare dhakhtarkii bay soo saaraysaa tacliintu hadduu mid qashaasha oo dawo qaldan qoraya soo baxo ummadana way dumaysaa waxbarashadu waxay soo saartaa macallinkii ayay soo saartaa waxay soo saartaa qofkii allahumma salli calaa muxammadin bulshada meel ka gelayay ee daweynayay bayloodkii bay soo saaraysaa injineerkii bay soo saaraysaa dhakhtarkii bay soo saaraysaa waxay soo saaraysaa qof kasta oo macno leh oo bulshada wax ku biirin karaa tacliintii buu soo marayaa haddii markaa manhajka tacliintu dee uu khariban yahayna mushkiladaasi way saamaynaysaa ummadda markaa in ilaahay subxaana wa tacaala ka abaaliyo sheekh cabdiraxmaan iyo culimmada kaleba laba doctor waxaanu leenahay insha allah aynu u dhug yeelanno waxbarashadeenna aynu ka fudh yeelno waxbarashada diiniga oo culimmadu ka hadlayeen waxaana runtii uu ina weydiiyey sheekhu waxbarashada cilmigu in ay isu beddesho inay shakhsiyaddii wax ka beddesho nin baa maalin wuxuuna yidhi nin sheekha oo runtii isaguna aad u caalima ayaa waxa uu yidhi dadkeenna wax baranaya ma macluumaad bay qaataan macluumaad bimacnaa dee waxay qaataan aqoon dee ay markaasi u korodhay mise way tadbiiqiyaan oo camali bay u beddelaan oo qofkii aqoonta matal qaadanayey ee matal loo dhigay aayadda sheegaysa inaanu muslimku been sheegin ma ka muuqataa mujtamacii in ay aayaddaasi dhaqan gashay
oo beenta loo arko wax weyn oo aad iyo aad u khatara mise aayadiina waa la garanayaa qofkina si fudud inuu been u sheega baa laga yaabaa marka runtii waxa kala duwan cilmi in la qaato iyo in lagu camal falo kuwii ku camal fala Allah inaga dhigo walaalayaal qof dumaraba waxay soo qortay duco inay doonayso waxaa tiri ninkaygu ama sawjkaygu wuxuu ka shaqeeyaa qaadka ilaahay inuu wax dhaama ugu bedelo iigu duceeya waxa kaloo ay tiri dayn baa laygu leeyahay bal dayntaana in alla ii fudeesi ay iga bixi lahayd iigu duceeya waxa kaloo ay tiri ubadka in ilaahay baari iiga dhigo iigu duceeya wa insha allahu tacaala jamac ayaa amiin odhan doona waana loogu ducayn doonaa insha allahu tacaala qofkan kalena waxa ay leedahay hooyadayoo xanuunsanaysa in ilaahay caafimaad ii siiyo iigu duceeya waxaan leenahay xaajiyaddaa hore ee ilaahay subxaanahu wa tacaala ee sawjkeedaasi shaqadaa shaqa dhaanta allah ugu bedelo ubadkana allah u islaaxiyo deyntana allah ka bixiyo iyadiyo dadka muslimiinta oo kale oo dhanba waxa kale aanu leenahay xaajiyadan hooyadeed ay xanuunsanayso allah u caafiyo qof kasta oo inaga xanuunsanaya ilaahay caafimaad ha siiyo allahumma ashfi mardana wa marda almuslimiin allahumma ighfir lana wa liwalidina وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه وسلم